بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقال كان يقصي شرقرية وحان لحركة يا وحقتان هلايا وأنا وربحينكم يقصي حارة قبل كسنة جارهان دقمة عرقابة دقالك كدعي خسارها يوحى ودقالك بلوضي ما كسي شرقرية ميل الجرسي إن شاء الله تعالى هرتيجا عرقابة كله الله مقالك هلا جرسي هذا عي هاي عبارو صدح دي أفرتي هبينو مركز صوماليا واحد أيان اللي يراهدو الشيخ سلمان آدم مدوي أو موادر الأساسي خاتمة أيان اللي قد لي مجال عرقابة هذا كان بان جروب كيس مرحوم كارنتي إذا كور رمو وقلص كسر عمد دجالكي عدو الدجال كأساسي خاتمة اللي جسي فيه وحو وراء عرقابات وهذا عرقابة كل شيء كقري وحو الدوبي ما يردو الموقع وكجاه الليو odayaal hartiyo caadaqaatayaal oo doonayeen muusabix ila kulmaan markuu duleedka argagabayeen si adag oo qayaxan ay uga hadlayay argagaha halkeeda waliba ma qarsan maxaa dhacay maalmahan way ku daba jireen way raadinayeen isna way islaalinayeen way iswaardiyeen xalayba waxay ku weerareen gaadiid dagaal oo ilaa 3-4 gaari ay ku weerareen gurigiisa waa dagaalamay waa istifaacay ugu dambeeyna dhaawac baa soo gaaray dhaawac ayuu u geeriyooday dhimashada Sheikh Salman Aadan Cabdimidoobe maxaa dhacay jawriga Cerigabo dhib isbedelay dhiigiisu dhulka ma sadicin magaalada Cerigabo waa isu ka dhaafay saaka marka waagu barigay lawaa niman gidaarku walba u dhaqaaqayay waxay sameeyeen bay magaalada military soo galiyeen ciidamada soo galiyeen xabad bay kala daareen shacbigii الشعب هو يسمى ماشي متشوه شعب بعد دقل ماشي إذا متشوه شعب كي بيحبضين وحال الميت كان لما عصي عسبتالكو أوليا وحنا لو شيء حتى إن داو إيسا وديك بحق لنتي ولا الديري إن وهدي لكوري هاي للداوي ويلقى الصور البهنتا ما يقولك يسألوك ودعا وهمايا هل كان لدردوري لمن يدور وقيلوا ودي هل كان سكتنا قنايا با يغنا لمري صدح با ku dhimatay geelina waa la dirarsada maxay marinay Sheikh Salman Aadan Cabdimidoobe dhimashadiisa markii la xaqiijiyay maxaa waxa lagu arguray saddex baa la isdul saaray waayo wiilka hartiga dhul bahante hal iyo laba iyo saddex ba ka badan buu qalmaa dhiigiisu dhulka ma dhicin meesha lagu dilay saddexda idoorka geeloodina la dararsaday ومال جوف اللي يراهدو وعرقابو يبود بعد udhaxaysa geelin la dareersaday saddexdaana laga dul talabsaday ayay soo rogal caleeyeen galabta iyagoo gawaari barbaqosyo wata oo weerar ah oo duulaan ah waxa la isku helay duleedka Cerigabo ayaa foodo la isku diray dagaal 2-3 saac socday ayaa halkaasi ku dhaxmaray maleeshiyadii ama jabhadda argagaxsada SNM ay soo duushay iyo ciidamadii dadka deegaanka isasi fooda la isdaray 3 saac ay weerarka dagaal ku socday waxa la inoo sheegay oo nala xaqiijiyay khasaaro weyn in lagu dhuftay darbaaxo kulul lagu dhuftay 6 dhimashaan ay meesha kaga carareen sidoo kale barbagosyadii ay ku soo waxa weey duulaanka tageen gacanta lagu dhigay oo qaniinahan loo qabsaday ina marka dhimashaduna hal mid baheed markii koowaad Sheikh Salman Aadan Cabdimidoobe markii dambena ninba dhaawac ahaan u geeriyooday halka labayn marna iyaguna maxay marayaan waxa marayaan 9 bay marayaan 6dan hadda meedkooda ka carareen iyo saddexda saaka waxa uu hadii la ku reeyay la isdul saaray xaaladdu daba xagee maraysan xaaladdu waa cakranta xabada Cerigabo gacanta loogu dhig lahaana waa ay bilaabatay Cerigabo waxa way horeban u moosnay horeban u ilaalin horeban maatada u ilaalin horeban nabadgeliyad waxa way hadii ugu dadbaalo laakiin dulqaadkii waa naga soo dhamaaday muusabix intuu doonayna waa helay oo wuxuu doonayay isaguna doorashada election waxa way uu extension ku helo anaga maxaan ay galay extension ka helayo waxa way laakiin ujeedka ugu muhiimsan oo anaga 5 jeer hore baanu dulqaadanay oo dulqaadkii naga dhamaaday oo noo bariyay oo la yiri u kaadiga oo Muuse Ismaaciil iyo Isaaq xaafadda Cerigabo ka degan ay anaga nala soo xiriireen oo ay maamulkayga la xiriireen oo ay dhaqankayga la xiriireen walaalayaal waxa rabaa caawin idin sheego haddii aad carari lahaydeen
هدي أد قحي لهايدين هدي أد إذا ماذا ملتريك إساسي يسودي بلهايدين هدي أد وحوي دجالة من لهايدين أنت ما أنت قدهني تلا رجالو وحنا الله شيء إن أفرت كورونا عيدا الجري ما تدي شعب كده ما أنت عاو ساكن بشكل عالي أو كان جنيد وحوي إسكنسي ولا يرو والنصو مسكول جريسين والنصو وعدين تلافك وايد كقمنا الله أو دجال بعد الإعلام يصير دجال كنا وايد لقاعدنا وبربلو وانا الديار وي waxna ba wixii hore soo dhacay mar warrabo iyo xaalad soo ku dhacday xogtu waa sidaas weey ninkaas argaalo lagu dilay dhul bahantay iyo saddexda meel waxa loogu aaray dagaalka rogaal aliska soo qaaray iyo lixda waxa weey hadii la kuriyay meedkooda ka caran in gawarada laga qabsaday dhaawacu isagu waa muush waa jira dabcan intaas waa inta waxa rabaa inaan daba la hadlo hartiga argaalo degan waxa leeyahay dadka horta argaalo naga degan afarta kooraba ciidan ba ka fadhiga waxaan loo diyaar gareeyay maxaabiis ahaan loo ururiyo xaqiiqada soo sheegay hartiga argaabo degan ninka isla dooniya loo socdaa oo ay heerka lagu socdo saddexdii dibi midna casaan midna madoowa midna cadaa ee kii casaan markii la cunay ee kii madoowa la cunay kii cadaa loo yimid dibigi markii loo yimid uu yiri maalinta labadii walaalada ee midna casaan midna madoowa aad cuntay badaaniga cunta hartiga argaabo degan isku doon bay saaray waxa la gudboon waxa weeye dagaalka in aad si u diyaar garoowaan oo waliba warsagali iyo dhul bahanta ba ugu tuweyn labada reer waa inay diyaar garoowaan oo ay dagaalka galaan waa inay diyaar garoowaan oo ay dagaalka si toos ah u galaan waxaan rabaa inaan halkan kala hadlo dawladda ay qaatimo argaalo aynu sii fiirsan karno oo dadkeena iyo shacabkeena aynu ku fiirsan karno cadow waxa dal ku reeyay walba waxa weeye mid dilo oo waxa weeye deere uma hirdin ay noqoto war waxa cid dul qaadanaysa ma jirto waa dhamaatay madaxda qaatimo waxa la militariga la galiyo hal la galiyo argaabo ciidanka hal la fasaxo hal taageero wiilasha qalasida ee dagaalamaya la diyaar garoobo waxa weeye saanad hal diyaar gareeyo ciidamada hal diyaar gareeyo argaabo waa ku kala baxna argaabana waxa uu hareeya ninka awood loo hareeya موسى إسماعيل كأرجعوا أو حافظوا يوجدون كوينا وروا على يارو دقات كوانا قدام ماضي حتى دجالهم الهيدين يتبع عرر الهيدين يتبع موسى أو يتبع كل شيء حوسجل الهيدين يتبع يديك يدي قصيصنا وديار بنا إسكنسي ولا على يارو ساقو إسكنسي أرجعنا نك أول حبل مباوع عليا سبت حوي بس أنا محلو كترنا محلو كتجعلنا وحنو كتجعلنا أديله كل صباح دلكي أول ما يحطوكي هل دوركني أقويانكي دلورديني هبين بوحوي هدير كل من ملح لو دوني ما حيك بلعبط وحيك بلعبطي هدراوي ديجيسي لا يقول بيديج وحوي هدير كل لاس أنا ملح دوب لقد ما حاش دارك هل بيكون قوي جاي صار هاي هو واسكو دعوي ملتري هدري أما بوليس كده بدري حاله يفرق عليه 15 ملي بلا يفرق عليه وحاله ديج سلمان شيخ سلمان آمن عبد المنوي وين نقضى هدراوي عرقابه وين نقضى وين وين عرقابه هدراوي عرقابه كأنت يقول لك لا وين نقضى وين ورنكي ولا هو هيا نكي هذا الكلام هيا نكي عقورسي هيا وردتك عرقابه كسرا يعني كوح ساعتين يعني كوح ساعتين وأمد أفرت كورونا عيدا لقدني وأمد أودي عيدا اللي أدك سني محل كرام قلت يسوع شو خرجنا war maxay kaga duwan horgaladaas oo xabada la dhacay horgalada harti ee warsigari leh ee bilbaahta leh ee gahayna leh ee argaalo jooga ee isaaq oo shaqeynay maxay kaga duwan ku yeelan laas oo xabada la dhacay warta isu sheegno warsigari bilbaahta la hadlaya ruta isu sheegno horgal wakiil laas aan kula dagaalana way ka argaabana ama caaqil ha aado ama mid xil hayaad ama mid si waxa weeye adala ku reeyay si hoos ugu shaqeeya ha aado argaabo ninka horgalka ee argaabo jooga waa horgal sida aynu kilaas aan la dagaalanay baynu uga dagaalamana hartiyo runta idin sheegaya inta argaabo ay way gacanta ku hayaan inta argaabo ay afarta koono magaalada ka joogan cadow inta argaabo hal doorkeena wax garadkeena habeenba mid loo weynayo waryaar hadeen war sidii dilkilaas aan ka dhicay baa si faraad hada argaabo waryaar war ma 2024 dawil hartiya oo argaabo ku sugan oo quwadiisa loo yahay maanta idoor
inta weeraraan xaafadda ku weeraraan dilaan oo ay dhahaan lama daweyn karo way dhig bax u dhintaa ruuxaasi wax la aqbay kale ma aha ruba ay sheegayaan dhulbaanta waxaan leeyahay si gaar ah la hadlayaa waliba Naali Axmed xaalka ergaabo Naali Axmed uma yaalo dhulbaantu yaala idinku dhulbaanta tii niman cali naalaya oo Naali Axmed oo Maxamuud Garaada oo Siyaad Maxamuuda oo waxa weeye dalku dhulbaanta baatiin xaalka ergaabo Naali Axmed uma yaalo dhulbaantu yaala diyaar garooba dhulbaanta u taga haddii maamulku uu taadiyo si khaatimo qabiil baatiin niman dhulbaanta baatiin dhulbaanta u taga reer ugu taga war waxa weeye dalku dagaal soo kala dhax reerkii dagaalka gali waaya ee diida waxa goortaas waa marka maamulka is khaatimo diido ciidamadiisa galiyo ergaabo oo sheeko walaaw haduu riwaayad ku duruuriyo maamulkiina khaatimo war qabiil baatiin dhulbaanta waxa weeye hadii ku ruux baxdaan dhulbaanta u taga reerkii idin diida ee waxa weeye gurmadka idin soo diri waaya oo dagaalka idin gali waaya aadar haybta kuma jiro dhulbaanta waxa leeyahay Naali Axmed waa jifiye alla la kamida waxay ku aadantahay waa idoo dhow waxa horta waa haba jeclo ya hadana ku leeyahay haweenayis oo iswata oo isaaq aaminsan jifiye alla la ka tagay alla la tama meelaad ku daawatay dadkiina waxa way ergaabo lagu leenayaa wartaasna waa dulnimo waa wada shaqalasay haday hore wada shirteen ergaabo Naali Axmed ka daga maxabada bilaabaan waa kuwa qarashadu cibaadaysanayaan waa kuwa xabad dareemaya waa kuwa aarsaday waa kuwa maanta maxabiista hadii la ku leeyahay qariyada furanay maxaa lagu daawanaysan gal dagaalka oo dalka uu hiliye oo waxa weeye dalka waxa loo leeyahay oo waxa weeye dagaalka lagu soo Naali Axmed adeer waxa weeye waa dhulbahanta weey taas waa taa dhulbahanta u diraya maamulka qaatimo xalay mas'uuliyadda deegaanka idinka la doortay waxaad kitaab ku marteen muwaadiniinta is qaatimo in aad cadawga ka difaacdaan waxa shacabka laynaya ee qarasada waxa weeye dalku ergaabo ku leeyahay waxa argagixisada waa kii aad oogiyo gubas aad ku jawayseen ma la daawan karo hadda daawataan anagoo qabiil hadii lagu dagaal galina anagoo qabiil badal galina taas waa taa warsamada waa la hadlaya warsamada ergaabo idinka dhulbahante waa wada taalaan tolow diyaar garooba horgalada ergaabo ee warsamada ka dhashay dhulbahantan isku sida in cadaan shaxbad ugu ridnay baynu ka warsamgali iyo Naali Axmed dhulbahante aynu xabada waxa wada la kureeyay ula dhacna ku ergaabo diyaar garooba waxa loo baahan yahay dagaalkaasi qaybta la xal ila ka qaata walaalayaal waana idinku ogaa niman ku filan waatihiin meesha walaalayaal isaaqina wa kala jecla wallahi dhulbahantana gooni ma jecla warsangalina gooni ma nacba walaalayaal waxa uu doonayo ee lagu dirirayo oo aynu u baahanahay inaynu difaacno waa magaaladeena weey waa xaafaddeena ku degan weey hartideena nahay labaniga walaalaha yaan hawar jecelayo habarayso iswada yaani inoo kala hadii la ku sheekeen xalay warsagariga iyo dhulbaanta leh idinka dadka isaga dhow wiilka Naali Axmed ee dhulbaanta iyo wiilka Nuux Umar ee ergaabo jooga dadka kale way isaga dhow yihiin waa iskaga dhow yihiin waxa way maanta waxa loo baahan yahay dadkii ehelkiina way taageersan yihiin garabkiina weeye diyaar garooba dagaalka ergaabo soo bilowday way dulqaadku waa naga dhamaad wiilasha cibaadaystay qarasyada oo hambalyeynaya ciidamadu ha tagaan saanada hala diyaar gareeyo kaalmada ciidanka hala diyaar gareeyo hala diyaar garoobo dagaalkaas inuu maanta dhaco waanu in badan baan ka baaqsanay in badan baan dib iskaga dhignay in badan baan ka daayay laakiin waa alam taro way soo dhaftay waana la kalifay ergaabo waa qabsanaynaa taas shako kuma jiro kii ku farxay iyo kii ka naxayo shako kuma jiro ergaabo waa qabsanaynaa xoog baan ku qabsanaynaa ninkii awoodna baan ergaabo horaya ergaabo waa lagu kala adkaanaya tuway ninkii awood hadii isaaq u haro waa awoodooda muruqooda waxa ay u goyso ay ergaabo uga hadho waa rag dhalay ha qabsadaan haddaan anigu awoodooda iyo cududooda ay siisana ana qabsanaya isaaqooda taaliq awooy dadkaasi in badan baa war ergaabo dagaal baa ka socda war waxba la abaabulaya wala isbihbihi wata maanta idin sheegay wata xabadii ugu horeysa ergaabo halkii abwaankii awoogay Allahu naxariis caaluux watuulaha ay isaga diyaar reerkaygu dir colaadeede dandaasay buuqa waa ay noogu darartaaye waa ay uga dartaa reerkayga daana nabadeed hala diyaar garo insha Allah khayr baa biirjinay muuqaalkan si shirkan